أنا waxaan u istaagay kaliya hal qodob inaan halkan ka cadeeyo sharcigan hor yaala waxa uu ka hadlayo waxa weeyaan hal arrin oo kaliya muhiim ah oo ka hadlayo horta khayraadka dhulka hoostiisa ah sida sanatarada sharafta leh uga hadleen hadda iyo sida sharcigan xoogaa uga hadlayaan waxaan isleeyahay ama farqi yar u dhaxeeya sharcigan wuxuu ka hadlayaa kaliya canshuuraha khayraadka sida loo canshuurayo ka hadlaya sida loo qaybsanayo kama hadlayo sida sanatarada ay sheegeen maxaa la yiraahdaa saameynta uu mujtamaca ku yeelanayo iyo waxa soo dhan kama hadlayo marka khayraad meel ka soo baxo oo khayraad meel laga helo khayraadkaas sidee la canshuuraya way waxa uu target gareynayo marka haddaad fiirisaan codobka koobaad ee sharcigan qodobkiisa koobaad ayaa si cad u sheegaya sharcigan waxaa lagu magacaabaa sharciga lagu hagayo nidaamka maaliyadeed khayraadka dhulka hoostiisa nambarka labaad wuxuu leeyahay sharcigani wuxuu nidaaminayaa arrimaha maaliyadeed iyo canshuureed ee la xiriira soo saarista iyo ka faa'iideysiga khayraadka batroolka iyo macdanta si waafaqsan sharciga batroolka lambarkiisa 19 nambarka 19 wata ee February 8 2020 la ansixiyay iyo sharciga macdanta lambarka 7 ee January 1984 soo baxay qodobka saddexaad wuxuu leeyahay sharcigani wuxuu faahfaahinayaa arrimaha canshuureed oo gaar ah cidda ka shaqeynaysa qodista khayraadka dhulka hoostiisa marka sharcigani waxa uu ka hadlayaa uu ku kooban yahay kaliya waa canshuurihi haddii laga hadlayo sida khayraadka loo wadaagayo waxay u baahan tahay sharci kaleeto waxaanan filayaa waa midda u baahan in laga heshiyo khayraadka dhulka hoostiisa sidee loo wadaagaya weeyaan midda u baahan in laga heshiyo mesela canshuurtan marka la qaado sidee baa loo wadaagi doonaa meelaha saameynta uu yeelan doono waxa soo dhan waa shuruuc kale ay aadaysaa laakiin kaliya wuxuu ka hadlayaa waa canshuurtu ka hadlayaa marka intaasaan rabay runtii inaan qeexo qodob aad muhiim ah oo ay tahay runtii inaan soo fiirino la laabano guddigeena maaliyadii waxa weeyaan qodobkii uu soo jeediyay senator Xasan Xaaji oo ka hadlayay qodobada shuruucda oo sharcigaani uu ilqeynayo ama uu meesha ka saarayo marka qodobada insha Allah waan soo fiirin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo waan la wadaagi doonaa waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.